booqday cali daahir cabdi oo ah nin dhalinyaro ah si weynna magaalada loogu yaqaano active ah muddana deganaa dabcan aan qiyaasay inuu wax badan kala socdo qaabka magaalada iyo doorashada sida la filayo u dhici doonto cali daahir waxaan kugu soo dhaweynayaa studio Somali Media xasanta Cabdullaahi iyo bahda Somali Media markale waxaan leeyahay ciid wanaagsan wana dhawaad ciid wanaagsan oo wacan waxaad la socotaa in dhawaan dalkan ka dhici doonto doorashadana waxa ku tartamaya xisbiye kala duwan oo dalka Sweden muddo ka soo jiray haba kala awood badnaadaan ama haba kala tiro badnaadaan hase yeeshee haddana waxaa la filayaa in 9 bisha berri wixii ka dambeeyay way bilaaban doontaa doorashada in la codeeyo waxay ku egtahay 9 bisha maxay kula tahay isleedahay adiga ra'yigaada doorashadan maxaad ku sifeen lahayd say isleedahay u dhici kartaa bismillahir rahmanir rahim markale waan salaam bahda Somali Media arrintan horta Soomaalida iyo sidii u quseeyo sidii doorashada u dhacayso waxaan filaa waa markii ugu saameynta badneed Soomaalida ay doorashadan ay sida weyn arkay sidii ay ugu qayb qaadanayaan iyo tijaab markii aan fakay sidii ay ugu jiraan heelanka iyo diyaar garowga ugu jiraan waa markii ugu horeysay arko Soomaali inay 100% codeyn doonaan oo egtahay sida kala dilo fiiriyo siyaasadan wadankan inta badan waa siyaasad iska degan ma ahan siyaasadaha wadamadan kale to iska qallaasaha iyo rabshadaha badan oo kale maahan dadka inta badan way ogyihiin xisbiyada awoodaha ay leeyihiin iyo sida ay ku soo bixi karaan iyo marka waxaan arkaa arrin aad u wanaagsan oo aan u maleynayo inay noqon doonto tii ugu badneed ee Soomaali codeysa inay noqoto markaan usoo daadegna dhinaca bulshada Soomaaliyeed ee degan magaalada Bulange adiga ku nooshahay oo aad wax badan ka warqabtid dabcan waad noo sheegtay inay soo wada bixi karaan waxay ka mid yihiin bulshada Sweden oo guud dadka ka qayb qaadanaya doorashada maxaad isleedahay marka ra'yiga ay ka qabaan inay soo saaraan dad magaalada wax u qaban karo ama muuqda dadka Soomaaliyeed ra'yigooda mise qofku waxay ku doortaan qof ay jecel yihiin nin jeclaysi waxyaabo kale ka fikiraan niyo arintaas waa arinta oo ugu badan ugu hadaleynta badan ee magaalada aan u baahanahay maadaama aan nahay bulshadii Soomaaliyeed inaan iska wacyi gelino oo aan bilaawno hadda anaga iyo saab badan oo badan aan bilaawno inaan ka wacyi gelino Soomaalida inay ku doortaan shakhsiga ay doonayaan inay ku doortaan madax banaani iyo u arkaan qof maxaa la shaqada ay u dooranayaan isku dooranin kaliya ninkan ama saaxiibaan nahay ama isku groupaan nahay oo kale isu dooranin waxay gelintaas ayaa wadnaha dirtaan laakiin hadda sidii u muuqato waxaad moodaa in musharaxiintii ay faray ka bateen oo maxaa lahaa aysan u muuqanin in bulshada Soomaaliyeed wax tarkeedii mid ka shaqeynaya uu soo baxo oo ay badan ay ku dooranayaan ninkan ama isku saxaabaan nahay ama isku groupaan nahay ama taasna waxay dib u celinaysaa horumarkii Soomaalida iyo wax qabadkii iyo xisaabtankii oo yaraanayso markii aad timaadid dadkana waxa ku jira dad badan oo hore u soo shaqeeyay oo maaragtay muddo badan soo ahaa ku soo jiray siyaasadda Soomaalida oo aan ognahay inta badan aan la arkin waqtigan kaliya markii ay soo dhowdahay labada bilood oo dambe oo markii doorashada soo dhowdo kale oo la arko oo aan la arkin inta badan in iska maqan oo ama aan ka dhex muuqan Soomaalidii problemkeeda waa ognahay Soomaalida haysata ee magaaladan dhalinyaradeeda haysata waa in wacyi haddii aan ka dhaxgala cali adiga tusaale ahaan haddii dabcan doorashada waa codkaada waa dhiibi doontaa qofka dooran doontaa adiga kulli qofkaas maxaad ku dooranaysaa isleedahay qofka aan dooranayo aniga sidaas iyo sidaas iyo sidaas aan ku xulana horta aad dadkana ay u ogaadaan oo aad maanta maadaama ka mid tahay dadka dhalinyarada magaalada jecel inay ku dhiirigeliyaan dadka inay soo baxaan oo codeeyaan dad qofkan ay ku qiimeeyaan maxaad adigu ku qiimeyn leeda ku dooran leedahay aniga shakhsiyan waxaan ku dooran lahaa dhowr waxyaabood magaaladan waxa inta badan sida intii oo Soomaalida degan magaaladan ka warhayso waxa waa xisbiyada way ku kala sareeyaan way ku kala awood badan yihiin marka ay timaado xagga wax qabadka xagga iskuulaadka marka aan kan dooran lahaa waxaan ku dooran lahaa nin bulshada Soomaaliyeed wax badan wax ka bedeli kara hadda sida ay tahay oo aan kii horeeto kale kii hore joogi jiray ka duwan keeni kara iyo inaan doorto xisbiga aan isleeyahay magaaladan waa midka inta badan majoriteedkeeda haysta oo kaleeto oo aan aaminsanahay maanta diin qof fiican oo shakhsiyadda oo dadkan dhex geli kara siyaasadda la socda oo wadankana maaragtay wax badan fahansan
haddii uu xisbigaas kamid yahay aan arko inaan doorto oo beri aan kula xisaabtamo aan dhaho maadaama xisbigan uu yahay xisbiga awoodiisa iskale magaaladan aan dhaho dhibkaana soomaalida haysta kan 2 3 4 haysta maxaa in loo bandhigo la horgeeyo maxaa lahaa meelansha oo looga doodayo siyaasadda oo waxqabadka iyo dhibaatada kale mees markii doodaan kale inay ka dhex muuqato soomaalidii oo ay keeyaan maxaa lahaa wax dhibaatadooda haysta in meesha la geeyo miiska la geeyo oo laga hadlo kadibna wax laga qabto laba arrin markaa soo qaadato waa dad siyaasadda muddo ku jiray oo aan dabcan ka dhadhansana hadda hadalkaada ay kula tahay aysan wax badan kusoo kordhin muddadii ay ku jireen inaan hadda mar kala doorano dabcan waxba sooma kordhinaysa camalan u dareemay laakiin haddana waxaad leedahay xisbiga waddanka haysan jiray isaga laftarkiisa miyuusan ahayn dadka hore usii joogay oo aad dhinaca kalena aad hadalkaada u dhigaysa inay tahay in aysan waxba hore u qaban hadday joogi jireen inta badan xisbiga way ka duwan tahay markii la yidhaahdo shakhsiyaadka markaas xisbigaas joogi jiray iyo hadda xisbiyaad shakhsiyaad hadda jooga xisbigaas waa xisbigaas dad badan badanaa ma lagu daaho xisbigaas sababta aan loogu daahayn wax kale maahan waa xisbi diyaar u ah inuu wax qofka u matalaya bulshada Soomaaliyeed ama bulshada kale taxta u matalaya inuu yahay qof shaqeynaya oo qof oo iska meesha iska fadhiyo oo kay justi kursiga iska fadhiyo xildhibaan oo xifan aan ka qayb qaadanin xataa markii timaado doodii magaalada ay timaado qof aan ka qayb qaadanin inuu iska fadhiyo oo barnaamij oo aan cod lahayn tusaale even mararka qaar aan gudbi karin wixii Soomaalida dhibkii haysto kale aan gudbi karin marka xisbi lagu daahay maan oo dadka inta badan kii shalay joogo maanta ma joogo haddana way ka duwan tahay sida muuqata dadkii way arkeen Soomaalida inta badan way fahansan yihiin ama way tijaabiyeen dadka horeeto oo tusaale marka adoo dhib socdo oo daalan markii laba jid oo jid jajaban oo ogtaa shalay aan ku daashay amreysay haddii ay aragti jid kaleeto oo nadiif ah oo nadiif oo aan jajab lahayn oo kaleeto aragti jidkaas oo nadiifka oo aan jabnayn raaci keen horeeto ku soo daalnay oo tusaale wax badan ay qaban jireen iska dhaafay waxa xataa aysan ogeyn wax ka jira magaaladoodii oo tusaale iskuulaadka kaleeto shan iskuulana kaleeto waa iskuul dadka macallimiin la'aan maalba laga sheegaa waa meel waxay noqotay oo dadka Soomaalida kaliya ay joogaan yaalkiin maanta ma haystaan maxaa lahaa quality waxbarasho fiican oo sareysa ma haystaan sababtuna waxa waa dadka metelaya ayaan codkoodii aan gudbinaynin oo dawladda aan gaarsiin karin aan kula xisaabtami karin maadaama ay yihiin awood meesha degan xaafadda ay tahay oo giraan lagu qiyaaso 5,000 6,000 oo qof ay degan tahay Soomaaliya oo haddana aysan jirin qof maanta hadalkoodii aan gudbi karin marka ma waxay kula tahay qofka siyaasad isaga oo Soomaalida ula imaan karo oo gaar ah jirto oo uu wax kaga bedeli karo mise waa inuu ku socdo siyaasadda xisbiga ilaa hadda xisbiga waddankan muddo badan soo xukumaya ama magaaladan u badan haddii dabcan sida aniga ila tahay dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin haddii iskuul uu xumaaday haddii xisbi lagu wada waa in isaga lagu qabsadaa haddii waddo jajabanta xisbiga lagu wada waa in iyaga lagu qabsadaa haddii isbedelka magaalada sida la rabay uusan garin waa in iyaga lagu qabsadaa haddii isla xisbigaas aad isleedahay weli waxaa usii fiican inay iyagii sii joogaan haddana aad xubno Soomaali ah ama xubno shakhsiyaad ka tirsan iyaga aan xaq ma tahay inaan eedo u saarno dhan iyaga ka jeeftay in wax laga qabto arrimaha iskuuladii waxaas waa sababta aan ku sii raacay mid kale waxa kale oo jirta percentage-ka ama qofka codadku ku soo baxana waa ku xiranta inuu isbedel sameeyo absolutely haddii codka Soomaalida uu kala daatay oo qofkii uu sancad badan ku soo bixin wuxuu ka bedeli karaa qolada siyaasadda waa marka hore waa sababta wax hadda u abuurayno dhalinyaro badan iyo wacyigelin badan aan sameynayno ah in aan ka xoroono waxyaabahan ah inaan 10 qofood 8 qofood bulshooyin kale kama jiraan in 100 qofood maxaa anagoo ayagoo hal qoomiyad ah in dhowr qofood oo kala duwan ay maaragtay magaaladii dadkoodii matalaan waana waxa keenaya anaga inaan dib u dhacno in dhowr qofood ay nimatasho oo way codadkeena aysan qiimo yeelan sababta marka aad 10 qaad aan 10 qaad nin kale 10 qaad wax qiimo badan xisbiga dhexdiisa ku yeelan maayaan laakiin haddii aan awood saarno sida aan horumarin lahayn dadkeena aan ka dhaadhicin lahayn in ay dadka qofka ay dooranayaan ay ku doortaan maxaa lahaa qiimeen ah in uu ninkan uu yahay nin yaqaan waxaan ama qof qasho shaqeeyo kaleeto maxaa lahaa waxbarashadeedii heerkeedii gaarsiisan inuu yahay qof matali kara wixii gudbin kara fikradihii oo dadka ama keeni kara xataa fikrado kaleeto ah in dadkan dhalinyarada haysto Soomaalida kaleeto dhibaatada haysto kaleeto loo sameeyo wax gelini laakiin hadday noqoto in 10 meel ay qaato waa dib u dhac weyn waaye laakiin hadda taas insha Allah taala waxaan wadnaa anagoo group badan dhalinyaro badan iyo isku jira dadka xogaa magaalada saameynta ku leh inaan taas bedel maskaxdaas aan bedelno ah aan keeno maskax ah
in aan sanadka dambeeto ama sanadaha soo socda kaleeto aan keeno hal qof oo heer fiican aan gaarsida bulshooyinka kaleeto aan gaarsiin waxyaabo badan oo aan isku kii qaban hadalkaada iga muuqda oo